kulan weyn ayaa caawa jiro saacadda wuxuu soo galayaa 4 saac oo habeenimo bariga Afrika iyo wadanka Turkiga. aniga kulankaas waxa waaye aragnimadeeda sports soo dhex jiray iyo qabiirnimadeeda aan adeegsado waxa waaye United Brian waa dhaarsan tahay oo ogtiin United laba ciyaar Liverpool oo soo dishay, Southampton oo soo dishay, United ka Sameer waa keentay, Anthony waa keentay. waxa waaye macallin Ten Hag aniga waa aaminsanahay, macallin aaminsanahay waaye marka caawa waxa kale ogaa doonaa macallin Ten Hag inuu taagan yahay wadadii macallimiintii hore uu taagan yahay iyo in uu taagnin oo ka soo laabtay. United waxa ku ogahay 3 kulan oo isku xigto hadee badiso nasiib ay yeeli jirtay 3 kulan oo isku xigto. aniga fikir ahaantayda ma aaminsana caawa Leicester inay ka badi doonto United. Man United iyo Leicester waa bareejo. Man United Leicester waa bareejo. ma sheegin kulankii Liverpool oo kale waxa la yani hiilada hayo waa daqiiqadaha loogu darayo yani cariirigi iyo saas inay ku badiyaan, laakiin sida City oo kale sida Arsenal oo kale foomanka ku socdaan ma ka filay. United da aqaano way macallin Ten Hag wax ka bedelan arki doonaa. Anthony waa u imaaday, Porteriga oo Newcastle uu heejir waa u imaaday, Casemiro waa ciyaartan inuu kusoo bilowda loo maleeno la filaa inuu dheeli doono. adi Martial ka maqan macallin Ten Hag sidoo kale wuxuu dhaar Ronaldo meel uma socdo in saacadaha soo socdaan macquul way. Atletico Madrid iyo Napoli iyo Balaya Ronaldo oo yahay rabaan. Chelsea xataa waan ficlahay number 9 Nobel aan hayso oo Chelsea in kasto Aubameyang iyo ka doorbidayso oo yahay inuu baxo, laakiin Ten Hag wuxuu leeyahay oo yahay ma baxay. sidoo kale Wan-Bissaka ma baxay, waa noo joogayaan labadooda, waa noo joogayaan meel u socdaan male oo yahay iyo Wan-Bissaka meesha noo joogayaan. United taageerayaashu inaa kala fura Wan-Bissaka wax lagu diro horta qalad waaye, waa la yaabanaay. Wan-Bissaka nin difaac fiican waaye inkastoo dhaqaaqiisa fiicneen. Duwi iyo Ruben Milan ka qaaday Destin Barcelona, Milan ama uga qaadatay oo la joogi doona sanadkan. marka way rabaan daste ka daba ordayaan ka daba inay Wan-Bissaka cishta Wan-Bissaka difaac fiican waaye. marka laakiin Leicester form xun ay ku jirtaa, Leicester form xun ay ku jirtaa. waxa maleena 3 ciyaar in laga badiyo maleena iyo hal bareejo haysato. form xun ay ku jirtaa Leicester. formkaas xun ayadoo ku jirto hadda waxa aaminsanahay United inay United-kii hore tahay, inkastoo macallinka basa dhalo aan macallin aaminsanahay uu yahay. caawana ogaa doona kulanka Arsenal ila leedahay United caawa ku qiimay doona in koox laga baqay tahay in ay tahay United hore naqaano iska dardartahay la iska dulmaray in koox laga baqay. marka aniga natiijo ahaan rijaal natiijada aan United Leicester ka qabo waa bareejo waaye. bareejo qorto ano adeegsanayo sport wax walba ka dhici kara. horta lama fila yani hadda adoo filayna Manchester wax lagu fakaraa 4 ciyaarta Brighton amar adoo la filayna Leicester wax lagu fakaraa 5, laakiin Leicester iyo United marka isku fiiray isbarbar dhig aan sameeyno bareejo nin meel dheer wax ka fiiriya yani Casemiro bilaaw lagu soo bilaawaa oo Premier League aad ula qabsan. midda kale waxa way warar badan iska jiraadeen. marka ciyaartan United hadday badiso waxay tagi doontaa 9 dhibcood, waa rajo fiican waa 9 dhibcood oo wax fiican waay. laakiin United hadday bareejo gasho ama laga badiyo United hore le waay wax cabsina kama qabi dooni. macallin Ten Hagna waxa dhigi doonaa Holland iskaga laabo. macallin kooxdan hadda nimanka keenay ninkan Anthony Lai, Casemiro iyo Porteriga iyo rag isku Erikson iyo rag isku ka keensaday rag macquul waay. Martinez iyo gadaal ku jiro, laakiin caawur kala cadaa doonaan. adiga maxay kula tahay United ma badi kartaa, bareejo ma geli kartaa, ma laga badi karaa? maxaa ka aaminsan tahay United? Manchester United ma tahay United-kii hore aad taqaanay mas waa United cusub oo fiican oo teamkan macallinka u dhisay ayaa leedahay. soo dhawaada fikirkiina waa furan yahay. waxba aniga hay dhigana saan waaye inta waaye sportska xilliga fiirsanay idinka ilmi fiirsanin. xilliga United aniga daba socday oo soo raacnay ilaa maantayda adinka United gadaal ka soo gashay. adinkin 2010 Bruno bilowday 2010 Bruno bilowday ninka u dheer hal iyo laba wala ilaa oo qabiirina Shardino oo kale iyo isha qof oo yani Abdullah Ismaan Faarax oo kale iyo taageerayaasha United aniga waa Abdulqaadir Boos oo marna fiirsi jiray marna ciyaal Hindi oo ay badanaay. hal iyo laba wala ilaa Maxamed Yuusuf Shabeelle ka shaqeey jiray wariyaha ahay. laakiin intiina kale dadka gadaal ka saraaca sheega